eedahaadii soo jeedisay dokumentkooga waa kuwaas waxaan u gudbin doonaa garsoorka Soomaaliland waxaan u baahanay cadeymahooga inaad keeni doonto garsoorka Soomaaliland waxaan ogahay inaad markasta wax samaysay ay ka soo dirto abtiyaashana waxa la ninka ergadiis yaana iimanin waxaan ku kala baxaynaa insha Allah garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland iyo shacabweynaha Soomaaliland guud ahaantiinba assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh ما جعلنا إن الماتا إذا هرم أضل لكن وحكسرتو وحي سورتقل نقوة دينا إذا كامسو أنا سامارد وهرو حاولن شريت هذا اللي وشجعنا ولا يساشيلا هذه اللي وشيلا ولا يساشجع فماتا أن هلا دينا هل كان يرو وربحنا أم بريد أم بفعل علينا قسم أيوه إن مسؤول كميدا مسؤولين السومالان وقبته وكهالي si guud Soomaaliland si gaar ah shakhsiyadayda marka runtii waxaan jecelahay maanta hadalkaygu wuxuu ka koobnaan doonaa saddex qodob mid waa bayaaminayo anaga Faysal hawshana dhex taala qodobka labaad waxa weeyaan inaan iska bari yeelo eedaha uu ii soo jeediyay qodobka saddexaadna waxa weeyaan anaga Faysal inaan ku kala bixi doono laamaha garsoorka Soomaaliland oo markii ugu horeysay laba mas'uul ah isla tagi doonaan insha Allah hadda la ka dhigo hadan ku horeeyo bayaaminta waxaan jecelahay horta anagu Faysal iyo anagu wax shakhsi oo dhex yaala ma jiraan laakiin waxaan dareemayaa Faysal si guud inuu hagardaamo ugu yahay amba dib u dhac nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland maanta waxa uu joogaa sanadkii 2020aad uu yahay gudoomiye xisbi oo markii afraad uu leeyahay waxaan u sharaxanahay madaxweyne taasi waxay meesha ka saaraysaa maanta inay 20 jirka ahaa 20 sanad muuse daawanay wala 40 jir marka nidaamkii sundii dawladnimo iyo dimuqraadiyadeed iyo isbedel meeshii uu ka saaraya marka runtii waxaan arkayaa Faysal inuu yahay weel maran weelka marana uu sanqar badan yahay wala kasta waxaan aragnaa Faysal waxyaabo qolka fuula oo aan jirin oo meelaha ka oranayo waxa aan kullay anigu aan ogahay Faysal inuu qaranka hagardaamay ku yahay inuu nidaamka dawladnimo hagardaamay ku yahay qaranka oo ku hagardaamo waxaad ogtiin inuu sheegay dalkan inaan qorshe lahayn maanta waxaan idila wadaagayaa qorshayaasha qaranka sababtoo ah marka laga hadlayo nidaamka maamul wuxuu ka bilaabmaa qorshe oo processka loo sameeyo qorsheynta dalaan qorshe lahayna horumar ma sameyn karo qof aan qorshe lahayna horumar ma sameyn karo marka waxa weeyaan Faysal wuxuu inkiray qorshaha qaranka ee koobaad ee Soomaaliland qorshii 2012 Faysal wuxuu dafiray uu yiri ma jiro wad ogtihiin qorshii labaad ee qaranka oo ah 2017 ilaa 2022 Faysal wuxuu dafiray uu yiri waxba kama jiraan hiraalka ama visionka Soomaaliland ee 2030 wad arkaysaan dhamaantiin wuxuu dafiray uu sheegay in aan qarankan lahayn wax qorshe sanadeeda wasaaraddu leeyihiin aanu jirin wasaaraddan lahayn qorshe ma jirto waxa weeye qorshe wasaaradda waxaana waajibinaya wadaagayaasha qorshayaasha qaranka ee halkan aad ku arkaysaan marka waxaan doonayaa horta inaan ummadda Soomaaliland biyaamiyo Faysal horta waa kaas waxa kale uu sheegay in aanay jirin wax qabad ummadana loo qabtay kullay waxa jira waxqabad guud oo dawladdu soo saarto bil kastaba laakiin waxaan sheegaynaa inuu jiro nidaam iyo system ay dawladdu ay isugu gudbiso wasaarad kasta waxay leedahay waxqabadkayga ay u gudbiso qaranka saddexda qorshe ee sanadkii 2018 waxqabad ee 2018 19 iyo 2020 marka waxaan doonayaa in horta uu bayaamiyo Faysal waxaan isku haynaa oo qodobadaas iyo nidaamka doorasho
ee dimuqraadiyadeeda Soomaaliland uu dibdhac ku yahay maanta wuxuu maray halkii Maxamed Siyaad Barre taagnaa Maxamed Siyaad Barre 12 sanadood buu kaga tagay dawladda Soomaaliya Faysal maanta hadduu hor taagan yahay dadku waxay isweydiinayaan waxay Maxamed Siyaad Barre u bedelay Maxamed Siyaad Barre loo bedelay waxaan aaminsanahay maanta hadduu joogi lahaa positionkii Maxamed Siyaad Barre diyaaradayo kaarayaal buu ugu duqeeyay isagoo inuu sameyn lahaa sidoo xil jecel yahay uu doonayay inaan dadka uga hordhaqaaqin waxaan markaa leeyahay Faysal ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland waxaan jecelahay inaad ka dayso beenta iyo laba wajiileynta aad maalin kasta ummadda la hortaagan tahay taas waa bayaamin qodobka inaan jecelahay inaan iska bari yeelo eedihiisa eedaha uu Faysal soo jeediyay ee igu eedeynay inaan musuqmaasuqan ku kacay horta Faysal kuma cusba inuu eedeeyo mas'uuliyiinta Soomaaliland مسؤول كستو Soomaaliland oo jira mas'uulaan oo eedayn waa yar yahay waxaan misaal soo qaadan karaa xagga Soomaaliland madaxweyne Daahir Yaale Kaahin oo geedan ilaa xaasiskiis inuu gaaray waxaan misaal soo qaadan karaa madaxweynahan ka horeeyay ee afraad ee Soomaaliland wadane Axmed Maxamed Maxamuud Jiilaanyo oo markii uu adkeysan kari waayay ku yiri war waxatay uf wax kale ku sheego uu garan waayay waa lagu nacay uf baa tahay waana xaqiiq maanta waa 4% buu qaataa iyo helaa waxa kamid ah madaxweynaheena imika mudane Muuse Bixi Cabdi wila qoyskiisii iyo familigiisii uu gaaray waxa ayaan daraa oo maangaabnimo wuxuu yiri madaxweynuhu caagad bay ku dhuftay hooyadiina waa caay markuu TV-ga Abu Dhabi ka caayay qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo cayladiisa talo ku asmeeyay ahayn dadkiisii waxaan aaminsanahay inuu madaxweynuhu u turay laakiin uu istaahilay inta ka badanba marka hortu wax ku cusub maaha maalin kasta waxaad arkaysaan dadka kelmada laaqiya oo aan waxba ka jirin ayuu maalin kasta ummadda ku sheegay xantuna maaha qofka ina dabadiisa ka tiraahdo hadal oo dhibsanayo laakiin xantu waxa weeye qofka inaad kan been sheegto iyo inaad ku tiraahdo hortiisa maalin kasta waxaan jirin labada xafladood ugu dambeeyay mid wuxuu ku dhaleecaynay oo ku aflagaadeynay maayirka hore magaalada Cabdiraxmaan Sotalko tii ku xigtayna aniga ayuu aflagaadeynay marka maalin kasta Faysal wuxuu bariinsaday inuu hilbaha dadka cuno waxaan Ilaahayna ka rajaynaynaa in waqtigiisu iska soo gaaban doono haddaan ku horeeyo mashruuca koobaad uu yiri Cabdilaahi wuu musuqmaasuqay mashruuca waxa la yiraahdaa Sustainable Road Maintenance Program amba SRP baa la yiraahdaa mashruucaasi waxa maal gelintiisa lahaa midowga Yurub dalka Jarmalka iyo dawladda Soomaaliland mashruucaasi wuxuu ka koobnaa laba qaybood qayb waxay ahayd capacity building qaybna waxay ahayd dayactirka wadada Hargeysa Kalabayd mashruucaas wuxuu ku sheegay 25 milyan mashruuca documentkiisa waan idin hayaa waa ka mashruucaasi wuxuu ahaa $6 milyan $25 milyan ma ahayn mashruuca waxa la saxeexay 4 bishii 8aad 2016 ku dalgalkiisuna wuxuu ahaa inuu dhamaado 2019 mashruuca waxa qaatay shirkad wadaniga Soomaaliland la yiraahdo Somaliland Horn Group mashruucaasi waxa laba qaybood ka qabanay qayb Puntland bay ahayd qaybna Somaliland bay ahayd qaybta Puntland way guul dareysatay laakiin xagga Somaliland waxaanu ka dhisnay 49 kilomitir waxa kale oo laga soo iibiyay qalabka laabka ah ee maanta inoo yaala waxa kale oo laga dhisay dhismaha hay'adda horumarinta wadooyinka waxa aan doonayaa in halkan ka cadeeyo mashruucaas ma jirto mas'uul Jarmal ah oo dalka laga saaray isaga hay'adaha garsoorka ka cadeyn doona mas'uulkaan ka saarnay dalka sidoo kalena mashruuca marka uu wareego nidaamka farsamada ee maaliyadeed waxa saxeexay mashruucan
maareeyay hay'adda horumarinta wadooyinka ee injineer Cusmaan oo maanta Hargeysa jooga mas'uul kasta idin ka midina uu wareysan karaa waxaan halkan ka cadeynayaa totally ma jirin wax maaliyada oo anigu aan $1 aan saxiixayga lahaa $1 kama saxiixin mashruucaas $1 midda labaad maadaama uu hay'adan gacanta haysay amba fund manager-ka GIZ iyo contractor-ku heshiiska wada galeen si toos ah ay wada xiriiri jireen sababta keentay inuu 19 kilomitir baa 12 waxa sabab u ahaa dib u dhac ku yimid contractor-kii laba jeer baan u kordhinay markii dambena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markuu mashruuc waqtigiisa dhamaaday wuxuu ka codsaday midowga Yurub oo safiirku inoo yimid Nicolas Berlanga inuu waqti inoogu kordhiyo marka waxa la waqtiga mashruucaasi waqtigiisa baa dhacay lacagta inaga dhacday ee nooga noqotayna duruuf waxay ahayd ka timid xagga contractor-ka ah ee wax mas'uuliyadda Soomaaliland ku lahayd may jirin marka runtii argaas waa been iyo propaganda aan waxba ka jirin waxaana idin cadeynaysaa mashruuca wax ku sheegay 25 milyan mashruucna koskiisu waxa 60 milyan ee 49 kilomitir qalabka laabka iyo laga dhisay dhismahaas haddii aan ku noqdo mashruuca labaad ee Berbera corridor mashruuca corridor-ka Berbera sidiisaba waxa la saxeexay isaga laftiisa 2016 ilagu waxaanu dhagax dhignay dhagax dhigiisa la sameeyay 28 February 2019 wuxuu bilaabmay January am June 2019 mashruuca duration-kiisu ama waqtigiisu wuxuu ahaa 22 bilood inuu ku dhamaado contractor-ku waa shirkad Imaaraatiya oo la yiraahdo MBHH shirkadda kale ee consultant-kiina waa shirkad Syria laga leeyahay laakiin base-keedu Imaaraat ko la yiraahdo Concert ma jirto wax maaliyada oo ay dawladdu shaqo ku leedahay maadaama oo ay contractor-ka iyo company-ga construction company-guba isku dal yihiin inaga wax lacag oo aynu bixin inaga soo gaadha ma jirto teamka aynu u xil saarnay BIU-da shaharkooga iyo shidaalkooga iyo stationery-googa dawladda bixisa waxa $1 dawladda Soomaaliland ka soo gaadha ma jirto lacagtana si toos ah ayaa contractor-ka iyo hay'adda Abu Dhabi Development Fund oo ah finance-ka inoo haysa ay u isticmaalaan runtii waxa jiray in waqti dhexe loo magacaabay unit uu madaxweynuhu magacaabay unit-kaasna waxa sabab u ahaa waxa jiray delay amba dib u dhac ku yimid mashruuca waxaana is eedeeyay company-ga wax dhisaya iyo company-ga consultant-ka ah si markaa taa looga baxo waxaan isla garanay in la sameeyo team-kaas BIU-da oo ku qornaa qodobka 5aad ee isfahanka ee Soomaaliland iyo Imaaraatku ay iska la wada gaaray 2016 in badan dadku waxay isweydiiyaan maxaa uu madaxweynuhu saxeexay teamka BIU-da waxaan doonayaa halkan ka cadeeyo channel-ka saxda ah ee sababta heshiiskaasi heshiis rasmi ah oo Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliland kala saxeexdeen buu ahaa waxa saxeexay wasiirka arrimaha dibadda sideedana marka communication-ka asalka ama correspondence-ka asalka dal waxa ku matala wasaaradda arrimaha dibadda ama xafiiska madaxweynaha waxaan doonayaa in mashruuc kasta oo la qabtaa wuxuu yeeshaa amba technical team-ka uu yeeshay BIU amba BTT amba waxa loo yiraahdo BMT baa la yiraahdaa waxa lahaa mashruuca GIZ ee gacanta ku haysay dawladda Soomaaliland qayb ka ah midowga Yurub waxay laan jiray BMT waa team wasaaradda iyo hay'adda ka tirsan sidoo kale Abu Dhabi Development ee waxa jeedaa Africa Development Bank mashruucan inoo wada wuxuu leeyahay technical team la yiraahdo BTT mashruuca SDF amba Somali Development Fund wuxuu leeyahay isaga laftiisu BTT mashruuca UNG Belgiga isaga laftiisu wuxuu leeyahay BTT Faisal dhibaatada haysata weligii agaasimo waxayd ma gaarin agaasimo guudna ma noqon wasiirna ma noqon marka ma garan karo project-ga programka iyo portfolio-da si loo maamulaa marka dhibaatada haysata waxa weeyaan dawaanin ahaan jiray site engineer barnafo ahaan jiray geometry the from geometry to gudoomiye waxa waa gaab weyn marka dhibaatada haysata waxa weey dhibaato maamul weeyaan ma garan karaayo ma jirto
تيم كان بي أيدو أنا وحها مسؤولين تام وريتيه وكمل هايان حفيز كوك حكي على هيدا RDA جديد كوا تو جديد هيدا RDA لا هاي شيدال كوا حقيقة هيدا RDA برقارن تو عندنا هنا أرجع سوا بين أنا حبك تشرين فيسولوا تشينو تشين هذا المغشان تشين كوا مغلى هالكلمة لأن سكاشن كلمات بقدرة سودت كوا ماركتي يجوز وجوتها وريريو مركارنتي وكلمات بمغلى سكاشن بيناتنا وقدرة waxaan jecelahay in halkan ka cadeeyo ma jirto ama la helayo meel aan ku yiraahdo xisbiga kulmiye waa argagixiso 2014 ayaa markii kongareeska xisbiga xogaa khilaaf yimid waan hadlay waxaan sheegay in xubno kamida xukuumadda waqtigaas yiraayo ay ku yihiin khatar ku yihiin xisbiga iyo Soomaaliland guud si guudba taasoo fududeysay in ay xubno argagixisaay ay si fudud uga dhex shaqayn karaan Soomaaliland waxaad ogeydeen 2014kii qarxii ka dhacay Djibouti ninka Turkiga lagu dilay eedeysanayaal Soomaaliland laga xidhay baa jira oo loo gudbiyay dalka Djibouti dhawaan uu madaxweynuhu ka hadlay marka dhacdadaasi dhacdo jirtay bay ahayd waxa kaloon doonayaan inaan u sheego Soomaaliland meelaan kulmiye kaga baxayna taariikhda ma jirin 2015 kongareeska xisbiga waan ka qayb galay anigu 4 cisho markaa jeelka ka sokiyay marka ma jirto hadduu cadeyno hay meelaan xisbiga kulmiye kaga baxayna isaga kulay sheegi doona Faisal runtii wuxuu xalaashaday si aan hore u sheegay hilibka dadka muslimiinta halka inankiisii نو حلاشدي ديجا دتك مسلمين ودكتين سقوا كذا على ما هي سيريا اللي قدري بس أنا حلايا هذا حسك هالليس كورجا قاعد يحتى الله إذا كورجا كهجاتيس أيه يكون مناسب هاي فنتي فيصلوا أنا ميمية يدتك إنه دتك سكوت رأيو هذا تشعلي هاي حاجي مسحر صعب كره جوجي وصو هذا القاضي فرت فيصلوا اللي جويو وحدوكتين توقفوا اللي جوي جمال الحسين بدو جيدين عبد الرشيد حسن متان بدو جيدين محمد الرشيد بدو جيدين عبد الرحمن عير بدو جيدين فيصل وحلايه وده كانوا نستحبان وها هذا احتري سنة ما أنت نارك لهين محصول قد كسر صارتي وشدة ده ضحى هيدين الله عك قاعدو أنا قلنا عن كوجي ميسي غير كيس كهين تيس يوانا جيس أنا قش قيو لكن وشدة ده ما يهين إلى الحماية وأنا وده جيجي والد بانو يجي هاي شرف يقيمنا runtii way iga mudan yahay lacagteena ida dawladda diiwaangelintu boqorshaagu ha laakiin adigu wax wanaag iyo sharaftoona ma lihid haddaad wax tari lahaydna maanta inoo muuqan lahaydo halkaad odaga dhigteen inuu koogu dhahay taasan ka leeyahay ugu dambeyntii waxaan jecelahay Faisal waqtigiisii oo ognahay inuu kamid ahaa dadkii Maxamed Siyaad Barrow shaqayn jiray rag xirxiray urka UFO 12 sanadood waqtigiisu ku dhamaaday ilaahay waxa ka rajeynaya adigna 12 sanadood waqtigaagu ku dhamaan doono waxaan doonayaa